مؤتمركن إسلامية ayaa waxa uu ka furmay magaaladan aynu ku sugannahay Oos ee dalka Denmark iyadoo labadii sano la soo dhaafayna isla magaaladan lagu qabtay waxana uu qayb ka yahay mu'tamarada islaamka ee dadka Soomaalida ee dunida ku nool gaar ahaan qurba joogta Soomaalida sida baaxadda weyn loogu nool waqooyiga iyo galbeedka Yurub ay si aad uga faa'iideystaan مؤتمركن ayaa culimada ka qayb qaadanaysa ay kamid yihiin Sheekh Maxamuud Dayib iyo Sheekh Usuuli oo galbeedka Yurub ee dalka UK kaga soo qayb galeen cibaadadu islaamka marka laga hadlayo way macna weyn tahay waxa la yiraahdaa shay kaste oo ama lagu hadlo ama la sameeyo ama qalbiga laga gunto إله درتينا الله سمعي أما الله هضله أما قلبي الله كنت عبادي سبدلية. وهذا الكيسان فتن كأو أنك نقصي قاصة دتكنا يوروب جو واحد هاي فتن المال أي نقصي أنك أدونك وحنا كفت نوب مال أي كفت نوب قريه ويدميان محيكو دميان لأجل مال يكون دميان وهذا الكيسان والدين ويكلت تغيان محيكو كلت تغيان مال درتي كلت تغيان حقيقة أولاد مركا لقى صورة مال كدتك يوروب جو فتنة يكون نغلي هذول إسك قبنا أرنتها مركا أو إلهي سبحانه وتعالى الله بنين وإحنا قناة إن وصل برحلة شيخ عبد الرحمن برقد وكي مد بريغا أفريقيا دلك جمهورية جيبوتي يو شيخ أحمد ياسين برقد لا أو يسنا كمدا علماء دجن دلك دنمارك وهو من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه يا رسول كيري قف عمل كيسي أدونك وهر مرين واي أو دب ولهري لم يسرع به نسبه نسب كيسو مهر مرين يو نسب كيسو مهر مرين يو إذن نسبكو وحش قينيا أو سيجريا ما أهانا يو وهو يعني مركي دمتو وبري مارتي قيامات استاغتو وهو يعني مجيء كاي بحتى لا يقعدنا يا مؤتمركن ayaa waxa si rasmi ah u furay gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee Denmark Sheekh Abdul Aziz Hussein Isxaaq Mawlana مؤتمركن wuxuu u leeyahay bulshada Soomaaliyeed faa'iidooyin aan la soo koobi karin maadaama bulshadan aan muddo dheer ay ku nooshahay wadamadan isla markaana ay ka fog tahay wadamadii culimadoodii iyo diinkoodii meeshii uu yaalay waxa laga maarmaan noqotay inaan u abaabulno kulamo diini ah oo dadka aan wax kaga bedelayno yani ku dhaganaashadooda diinka ubadkooda siisan u dhumin ahmiyada wadankan cusub ay yimaadeen waajibaadka lagu leeyahay dalalkan ay yimaadeen iyo sida ay u xifdisan lahaayeen wixii ay wateen saas ayuu muhiim u noqday inaan shirarka noocan oo isdaba joog ah qabano waxaan isleenahay wax badan baa arintaas ka qabsoomay maadaama mu'tamarkan lagu casuumay culamaa u diin kala duwan isla markaana ka kala yimid dalal aad u kala fog ayaa waxa kamid ah Sheekh Cabdiraxmaan Barqad Good oo isagu ka yimid qaaradda Afrika gaar ahaan dalka Jamhuuriyadda Djibouti shaqa waxaad iga warantaa maadaama kulankan ciwaan looga dhigay islaamka waa hab nololeed dhameystiran adigu mawduuca maanta ka hadlaysid muxuu yahay runtii ciwaanka guud ee kulanku waa ciwaan wanaagsan waxa jirta taariikhan islaamka waxa laga saaray noloshii islaamka waxa lagu xeeray kaliya ee masaajid waxa loo arkay inuu ka qayb qaadan karin nolosha dhaqaale ama siyaasadeed ama bulshada oo umadu ay u baahan tahay waxa lagu xayndaabay masaajid islaamka marka waxa lagu koobay xaj iyo salaad iyo wixii halmaala marka runtii mu'tamarkan ciwaanku wanaagsan yahay waxaan bulshada Soomaaliyeed ku talagalay inaan gaarsiino inuu islaamku u qalmo nolosha inuu hogaamin karo ummadna hogaamin karo marka anigu maanta insha Allah waxaan ka hadlayaa laba maxaadaran ku lahay ama laba fadhiga hore waxaan kaga hadlayaa xiriirka dhulka iyo samada basharku inuu Ilaahay u baahan yahay sidii loo hagaajin karaa xiriirka naga dhaxeeya inaga iyo Khaaliqina abuuray subhanahu wa ta'ala hadii basharka iyo Khaaliqooda ay heshiiyaan oo xiriirkaasi wanaagsanaado waxa naga dhaadhacsan sidii Ilaahay ba sheegay adduunkeena wax xumaan insha Allah ta'ala sidoo kale kulankan ama mu'tamarkan waxa ka soo qayb galay Sheekh Maxamed Sheekh Ibrahim Kinyawi oo isna laga soo casuumay dalka Masar isla markaana waxa uu ka qayb qaadan doonaa mu'tamarkan inta uu socdo waxaana la soo gabagabeyn doonaa hadii Allah awood la idmo maalinimada Axadda ay fooday nagu soo haysa Ibrahim Umar Baafe wararka Universal Oos Denmark